qodobka labaad halkaasaan uga gudbaynaa. qofku wuxuu samaysan karaa maalan bilmithaal calaa sabiili mithaal jadwal inuu samaysto, waa yani oo sidaan u samaysto maalmahaasa u samaysto, waa asagaa amiiru nafsihi asagaa ah oo naftiisa maaragtay amiir u ah, sida uu jadwalka markaa asaga u yaqaano inuu u samaysto oo markaa uu jadwal wax ku akriyo waa daruuri. waxaa samaysan kartaa heli kartaa maalan jadwal mudaakara ah oo diyaarsan ayaa marka kala soo degi kartaa, ama dhowr xabaad maalan aad ka fiirfiiriso ayaad waxaad ka heli kartaa midka adiga munaasabka kuwa ah, jadwalka munaasabka kuwa ah ayaad qaadan kartaa. kan marka waxaan ugu talagalnaa bilmithaal calaa sabiili mithaal inaad jadwal adiga samaysatid. qodobka waxaan halkaan marka inta qodobadii waxaan soo qaadanay qodobka koowaad iyo qodobka labaad. intaan qodobka saddexaad gaarin ayaa waxaan rabnaa inaan sheegno halkaan inaan sheegno umuur arrimo muhiim u ah intaan qofka mudaakarada uusan bilaabin arrimo muhiim u ah ayaanu sheegaynaa oo ah maalan thiqatu binnafs, qofku inuu isku kalsoon yahay horta awalan, markuu ilaahay tala saarta kadib inuu qofku naftiisa u ictimaado oo uusan isku hadlayn waxyaala dad kale haayaan, uusan isku hadlayn amba hebel aad meel wax ku gelaysaan imtixaanka wada gelaysaan, amba waxaa la helaa qisha la helaa, amba maaragtay waayii horeba saasaa la yeeli jiray. waxyaalahaas inaadan aadan isku dayin, inaad adiga aad marka awoodaada aad aqooneed iyo diyaargarowgaaga inaad ku tashatid waa muhiim. midda labaad waxa weeyaan wujuudu xaafisin, inuu jiro wax adiga ku dhiirigelinaya. maxaa adiga ku wada oo kugu xambaaray inaad wax akhrisid su-aalahan miya maalan limaada tudaakir, maxaa wax u muraajaceynaysaa oo waxaad ugu ceshanaysaa oo aad maaragtay jadwal u samaysanaysaa oo aad waqti u seexanaysaa, waqti usoo jeedaa. hal litanjax fi limtixaan am litacliim ashyaa jadiida am yani litaxsiil khibra aw maaragtay faa-ida. yani inaad isweydiiso dabcan waxaad doonaysaa inaad imtixaankii aad ku guulaysato, guul kaliya maahan inaad ka keento maaragtay guulsha ugu sareysa ama meesha ugu faa-idada badan inaad imtixaan dhibco fiican keento. marka adiga waxaa laga yaabaa niyadaada iyo maaragtay hadafka aad leedahay iyo waxa u akrinaysid ayaad u badan tahay ilaahay inuu maaragta kuu qaado. marka inaad marka horeba aad wax ku wada aad fahamtid, maxaa ku wada inaad ogaatid waa muhim, oo xaafis inuu jiro adiga ku dhaqaajinaya oo aad ishor dhigtay su-aalo isweydiisay kadibna aad doonayso inaad ka jawaabto su-aalahaas. qodobka kale waxaa isna ashucuur bishabic, qofku marka uu muraajacada bilaabayo waa inuusan qof mashaakil kale ku furayn uusan ahayn, maalan inuu baahan yahay ama uu ooman yahay ama inuusan yani qofkaas ma diyaarsan ama uu daalan yahay maalan. meelo kale laga yaaba inaan ku sheego, qodobo kale aan ku sheegno, lakiin halkan waxaan ku sheegaynaa ashucuur bishabic, qofku inuu xoogaa yar dee qof calosh wax ugu jiraan inuu yahay. nin baa waxaa la weydiiyey, waxaa la yidhi laba nin baa waxa lagu kala saaraya su-aalo lagu kala saaraya, waxaa la weydiiyey waxaa qof waxa uu qaado waxa ugu culus sheeg. marka laba nin baa xoogaa isku qabsatay oo arrimo rabay in dad khiyaar u togol kala saara yidhi oo xaqiiqda ay isku haystaanna aan ogeyn, baa waxaa la yidhi labadiina ninka khibradda badan. su-aashu waxbay ahaydba nin boqora ayaa iyo ninkii u shaqey jiray, ninkii boqorka ahaa markii boqortooyadiisa burburtay, ninkii marka boqorka u shaqey jiray ay isqabsadeen wuxuu yidhi soo ima aadan shaqey jirin oo nin boqora ma aan ahayn. marka wuxuu ku yidhi hadde anaa boqora haddeer, adugu hadda boqortooyadeedi hadda lama arko, marka ana boqor ana hadde anaa boqor ahaa jiray. waa isqabsadeen, daday u tageen, marka waxay yidhahdeen ana waxay ku kala saaraynaa su-aalan in weydiina. su-aalihi waxaa ka mid noqday waxaa leeyahay wax qof walba ha sheego waxyaalaha ugu culus, waxa qof qaado waxa ugu culus. marka ninaa jawaabay wuxuu yidhi waxa ugu culus wax la qaado ciidaa ugu culus yidhi. kii kale waxaa leeyahay maku waafaqsanta, markaasuu yidhi maya. marka wuxuu yidhi maxaa ugu culus? wuxuu yidhi marka waxa ugu culus yidhi calool maran addimo sida ayaa ugu culus. marka waxaa leeyahay ninkaas khabiirka ah oo su-aasha sida saxda uga jawaabay ayaa waxaan u aragnaa inuu yahay boqorkii. ninkaan gara waayena waxaan dareemaynaa inaad tahay ninkii boqorkaas la joogi jiray. marka waxaan ula jeedaa in aad calool yani maran
qof yani calooshiisu maran tahay inuu wax badan akriyo ama uu maaragtay uu cashar diyaariyo ma badna, natiijo badan ma u keenayo. marka qodobka saddexaad kale wuxuu yahay tanaawul dacaamin saxiyin wa mufiid litanshiid الdimaaq. cunto qofka caloosha ha ku shubo, laakiin haddana waa inay tahay cuntadaas cunto caafimaad qabta ama mufiid ah oo maaragtay runtii maskaxdiisa tanshiid ku samey karta oo dhiirigelin ku samey karta. الشعور بالشبع تناول طعام صحي. تناول طعام صحي ومفيد لتنشيط الدماغ. إن caafimaad cunto caafimaad leh inaad qaadatid oo jirkaaga mufiid u ah runtii waa mawduuc dhan oo u baahan ardayga in laga wacyigeliyo ayaam al-imtixaan wa bacda maaragtay qabla isticdaad al-imtixaan wa athnaa al-imtixaan ardaygu muxuu qaadanayaa muxuu cunayaa oo wax ka horse u baahan runtii inay ka hadlaan dad aada khubaro ugu ah ama aada u yaqaana cuntooyinka iyo sida ay u kala fudud yihiin ama ay maaragtay u kala waxyeelo badan yihiin ama saameynta arday ay kuleeyihiin ama ardada inta badan borotiinka ah laga yaabo arday inay hurdo ku keento ama daal ku keento ama waxyaalaha oo kale waxay u baahan tahay dad khubaro ah. laakiin haddana waxaa la fahmi karaa qofku inuu aada iskaga ilaaliyo waxyaalaha oo maaragtay cunto fudud inuu qaato, waxyaalaha maskaxda shaqaynteeda maalan cuntada maaragtay shaqada yani qofka maskaxiyanta u furfuraysa inuu qaato, inuu maalan iska yareeyo waxyaalaha ay cajiinku badan yihiin oo kale soomaaliduna u badan tahay runtii waxyaalaha almuhim inuu cunto caafimaad qabto nidaamsan inuu qaato ayaa muhiim ah. iyadana waa umuur haama qabl almudaakara, intaada mudaakara bilaabin ka hor laga rabo. qodobka saddexaad wuxuu yahay tandiim alwaqti, qofka waqtigiisa inuu nidaamsado, waqtigiisa inuu nidaamiyo. dabcan maadooyina horyaala, maadooyinka waa intaasoo maado waqtiguu haysto maalan waa rabo in wax akriyo waa hal asbuuc maalan ama 2 asbuuc waa inuu diyaar garoobo, walow ay faa-iidadu sida saxda ay tahay ardaygu ma diyaar garoobo xilliga imtixaanku yimaado. ardayga aada arkayso in wax keena ama maaragtay buundada hela ama wax fiican imtixaan ka keena guush kasoo hooya ma ahan ardayga marka gambaleelka lagu yeeriyo uu ku dhaco arday wax akhriya maan. waa arday marka hore jadwal lahaa wax akhri jiray, macallimiinta aada ula socday, aada maaragtay wax loo diro soo diyaarin jiray, isla markaasna jadwal wax ku akhriya lahaa oo maalin walba iyo maado ay lahaa. marka inuu qofku waqtiga iyo isku qaybiyo iyo maxaan ku yidhahdaa ii sheegeen iyo maadooyinka sida asagu ugu kala muhiimsiin ama ugu kala adagyihiin oo ugu kala bilaabo. waa tandiim waqti marka qofku inuu hadaafso waqtiga marka inuu aada nidaamsato waxaa ka qayb qaadan kara inay jirto wax maalinla aada qabanaysid. maanta waa sabti maalan maxaan qaban rabtaa, beri waa axad maxaan qaban rabtaa, maxaa kugu qoran axad isniin maxaa kugu qoran, talaada maxaa kugu qoran. wadcu lahdaaf alyawmiya, ahdaaf ama goolis aada rabto inaad xaqiijiso maalinla ah berdhay ma jiraan, waa muhiim. sidoo kale aljaw munaasib oo laga wado maalan goobta aad ku akrinayso inay tahay meel aada maaragtay mukhasas ama laka adiga gaar ku ah oo buuqa iyo dajada iyo buuqa iyo qaylada ka fog. maalan makaan ku haboon oo maalan yani munaasib ah oo wixii aad ku akri lahayd iyo waxaad u kaalmaysan lahayd ay yaalaan. sidoo kale waqtiga inuu u qeybiyo mawaada uu akrinaayo iyadana waa muhiim, tandiim waqti qayb soo gelaysaa. alibticaad inuu ka fogaado camaa yulhi wixii maaragtay camaa yulhi ow yulhi, inuu ka fogaado waxyaalaha asaga mashquulinayo. waxyaalaha mashquulinayo maalan wax kasta oo aan ka mid ahayn maaragtay aan ka mid ahayn waxa mudaakarada aan ka mid ahayn noqon karaan. waxay noqon karaan maalan
computerkay noqon karaan, waxay noqon karaan telefoon, waxay noqon karaan masalan telefoon noqon karaan, waxay noqon karaan wax kasta oo inaad isticmaalka waxay noqon masalan internet ayuu noqon karaa oo markaa runtii aadan baahi u qabin ama aadan masale gaara aadan ka faa'iidaysanayn ayay noqon karaan. Marka dhammaan waxaa adiga markuu mashquulinaya waxay noqon karaan dad, noqon karaan aalad aad isticmaalaysid oo aan calaaqo badan la lahayn akhriska ama diyaarintaada, ama marka muhiimadda markaas aad u fadhiso aan lahayn. Waa in aad ka adagta. Marka haas leenahay macnaheedu waxa weeyaan arday aan asagu naftiisa u diyaarsanin oo wax akhriyo, naftiisa aan jadwali karin ama naftiisaba aan ka adkayn, imtixaan kama adkaan karo. Dabcan imtixaan kama adkaan karo. Marka ahdaaftaas tandiimul waqti ay arday looga baahan yahay. haddaad tira waxbaan akhrinayaa de meel aan adoon gaarin ayaad daalaysa, laakiin haddaad hadaf leedahay, waqtigu ku nidaamsan yahay, waqti walba wax kugu qoran yihiin, waxay badan tahay waqti walba wixiisii inaad ay isku dhammaadaan oo aad meel aad wax ka bilaabi karta berri aad istaagtid maanta. Nuqdada afraad waxaa weeyaan khud fawaasila raaxa muntadima. Ma jirto ardaygu waxaa laga yaaba inuu u maleeyo diyaarinta haddii waxaa la yidhi qaabdaro qaadi waa ka daran. Shay adiga aad qaadi karto oo qaban karto, haddii si qaab daran aad u qaado matalan adoo qaadi kari lahaa ma qaadi karaysid. Marka sidoo kale haddii adiga aad waqtigaaga aad istiraahdo hal mar daaqadaada bixiso, isbaabi'iso, waxaa laga yaabaa in isbitaal lagu qaado oo lagu yidhaahdo war ninkan dee waxa maaragtay aad dhacdo kaliga dhacdo maskaxdii wax gaaraan, ama inta hirhaaq ku dhacday dhan waxa maaragtay ay tabartii kaa idlaato oo la yidhaha falanbaha lasoo suro. maxaa keeni kara haddaad marka hore caafimaad qabtay inaadan qaadan hal mar nafta iska siibto, inaadan qaadan raaxo ma waqti nasiina, inaadan qaadan. ardaygu saan hore usoo sheegnay inuu waqti wax akhriyo, beriga qaato, waqti kale akhris bilaabo ilaa waqtigii ugu talagala uu ku geeyay. kadib yani waqtiyadaas beriga ayay ku dhex jiraan, yani ama qabayskiisa ama maxaan ku ii sheegay xoogaha quraacdiisii ama wixii uu nashaadaad ka heli lahaa uu qaadan lahaa. laakiin ma jiro waxa la yidhaha harqaan ma jiro, la tarag min hal saac ilaa 8 ilaa 12 ilaa hal saac ilaa duhur ma jirto. waa in qofku istiraaxooyin leeyahay oo u habaysan, oo leeyahay markaan saacaddaa gaaro matalan 3 saac markaan akhriyo waa inaan beri nus saaca qaataa oo aan maaragtay maskaxda furaa, aafaaqda fiiriyaa oo maskaxda aan ka shaqaysiiyaa. waxay ka qeyb qaadanayaan litarkiis almacluuma allatii acdadtaha, macluumadii aad diyaarisay inay maaragtay ay fariisato ayaa bareega iyo nasiino laftooda ka qeyb qaadanaysa. marka ma ahan waqti kaa beerdaroobay oo adiga aan meel kugu tirsanayn ma ahan, waa waqti saacidaya wixii aad soo qaadatay, haddana nashaad kuu gelinaya inaad mar kale aad dib wax u qaadatid oo abiteedka akhriska la rabo inuu kuu furo. khud fawaasila raaxa muntadim. qodobkaasna waa qodob muhiima runtii, sidiisu wuxuu yahay qodob maaragtay